kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halka Bulsha Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idiinana waxaa kamid ah Real Madrid ayaa u dhaqaaqday Mohamed Salah, Man United ayaa ka walwalsan mustaqbalka Camavinga, Chelsea ayaa loo diiday dalabka ay ku doonayeen Haaland, Napoli ayaa isku diyaarinaysa xidiga Chelsea Emerson. Intaasi waxay qodobadii warkaatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Real Madrid ayaa u dhaqaaqday Mohamed Salah. Real Madrid ayaa bilaabaysa olole lagu xoojinayo in lagu soo xorogeliyo laacibka kooxda Liverpool Mohamed Salah. Laacibka kooxda PSG Kylian Mbappe ayaa weli bartilmaameedka ugu sare Real Madrid xilli ciyaareedkan. Laakiin warbaahinta Spain ayaa sheegay in Mohamed Salah uu yahay dooq muhiim u ah Blancos. Real Madrid ayaa doonaysa inay weeraryahanka kale ka hesho horyaalada Yurub, waxa ayna weerarka ku qaadi karaan laacibka Liverpool Mohamed Salah haddii ay ku guuleystaan dalabka xidiga Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Man United ayaa ka walwalsan mustaqbalka Camavinga. Warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar. Kooxda Manchester United ayaa ka niyad jabsan dalabka Eduardo Camavinga. Xidigan ayaa maalmihii ugu dambeeyay xiriir la lahaa maamulka kooxda Real Madrid, waxa uuna diyaar u yahay in uu ku biiro xilli ciyaareedkan. Camavinga ayaa hal sano ugu hartay qandaraaskiisii kooxeed. Laacibka khadka dhexe ayaa lagu wadaa in lagu iibiyo adduun dhan 25 milyan oo geni. Telegraph ayaa sheegaysa in Manchester United ay ka warqabto Eduardo Camavinga inuu diyaar u yahay kubiirista kooxda reer Spain Real Madrid. Camavinga ayaa dhawaan dalabyo ka soo gaaray kooxaha kale ah Real Madrid iyo Barcelona, kuwaasoo horey u cadeeyeen in ay daneynayaan saxiixiisa. Eduardo Camavinga ayaa ku biiray kooxdiisa Rennes sanadkii 2019, waxa uuna heshiiskiisa ku egyahay 30 Juun 2020. Chelsea ayaa loo diiday dalabka ay ku doonayeen Haaland. Borussia Dortmund ayaa go'aansatay inay sii haysato xidigooda soo jiidashada badan Erling Haaland. Maamulka kooxda Chelsea ayaa dalab furitaan ka gudbisay laacibka Borussia Dortmund Haaland sida ay qortay Sky Germany. Chelsea ayaa soo bandhigtay inay dalabka Haaland ku daraan xidigaha kale Tammy Abraham ama Hudson Odoi. Laakiin Borussia Dortmund waxaa ka go'an inay sii haysato xidigeeda farsamada badan xilli ciyaareedkan. Erling Haaland ayaa ahaa bartilmaameedka koowaad ee Chelsea xagaagan. Chelsea ayaa u muuqata inay u dhaqaaqdo saxiixa Erling Haaland, laakiin weli ma doonaysa inay miiska saaraan adduun dhan 200 milyan oo euro. Napoli ayaa isku diyaarinaysa xidiga Chelsea Emerson. qodobkaasi waxaa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim. Napoli ayaa doonaysa inay soo qaadato difaaca kooxda Chelsea Emerson sida ay qortay Calcio Mercato. Kooxaha kale ah Inter iyo Roma ayaa sidoo kale la xiriirinaya 26 jirkani xilli ciyaareedkan. Emerson ayaa qandaraaskiisa ka harsan yahay kaliya hal sano. Laacibkan reer Talyaani ayaa aad u diidan in uu la sii joogo kooxdiisa Chelsea xilli ciyaareedkan cusub. West Ham ayaa qiimaha adag hor dhigtay dalabka Declan Rice. Maamulka kooxda West Ham ayaa ku dhawaaqeen inay xidigooda Declan Rice uu si fudud kaga tagaynin kooxda xilli ciyaareedkan. Eurosport ayaa sheeganaysa in West Ham ay doonayso inay iibiyaan Declan Rice haddii ay helaan qiimo gaaraya 80 milyan oo euro. Kooxaha kale ah Chelsea iyo Manchester United ayaa wali lala xiriirinaya laacibka khadka dhexe ee Declan Rice. Kooxda Chelsea ayaa wali ku rajawan inay isku dayi doonaan xilli ciyaareedkan, balse marka hore waxay doonayaan inay shakhsiyanba ka dhaadhiciyaan Declan Rice imaanshada kooxda Chelsea. Everton ayaa dalab adag ka gudbisay saxiixa Koulibaly. qodobkaasi waxaa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim. Everton ayaa dalabkeedii ugu horeysay ka gudbisay xidiga kooxda Napoli Koulibaly. kooxda Everton ayaa raadinaysa inay war ka soo saarto tababaraha cusub Rafa Benitez iyo qorshihiisa cusub ee suuqa kala iibsiga. Koulibaly ayaa magaciisa aad ugu baahay xirada tababarka ee kooxda Everton, iyadoo Rafa Benitez uu horey u soo wada shaqeeyeen xidiga reer Senegal Koulibaly. Calcio Mercato ayaa sheegtay in kooxda Everton ay dalabkeedii ugu horeysay ka gudbisay 30 jirka Koulibaly. qiimaha ay ku doonayso weli lama cadeynin, laakiin Napoli ayaa lagu soo waramayaa inay aqbali doonto dalabka ku kacaya 35 milyan oo Koulibaly kaasoo kooxdiisa heshiis kula jira ilaa iyo 2023. Pogba ayaa soo dhaweeyay dalabka ka soo gaaray PSG. Laacibka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa u furan inuu u dhaqaaqo PSG xilli ciyaareedkan. Paul Pogba ayaa xiriir ka helaya madaxweynaha kooxda PSG Nasser Al-Khalifi iyo agaasimaha sportska kooxda Leonardo. Pogba ayaa in muddo sugaya inuu dalab kaga yimaado maamulka kooxda Real Madrid. Paul Pogba ayaa soo jiitay mashruuca ay wadaan Al-Khalifi iyo Leonardo, waxaana diyaar u ah inaan soo dhaweeyo dalabkooda. intii aan kusoo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV iyo aniga Munic Ismaan waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.